waxaanu amar ku siinay booliiska inay talligada tagaan in magaalada amnigeega ilaaliyaan ayaan ugu tagnay ciid ugu tagtaayeen jirin waxa dhacday in jidadka la xidho dadka baad lagaga qaado haweenka lagu dhibaateeyo olada militariga ka maqan iyaduna waa kala hadalay taliskoodii waxaan leenahay iyaguna xeryoogii ha ku noqdaan ciidankii ammaanka lagu celiyo maadaama ay soo baxeen waxyaabo badan oo amni darro badan keenaya oo noloshii bini'aadanka dee ku ah mataqaanaa lid ku ah waxaynu ogeyn in aynu nidhi oo raggii yidhi aan ka mid ahaa oo ragga halkaa fadhiya ka wada mid ahaayeen iyo rag maqaniba ciidamadu magaalada ha ka wada baxaan dhammaantood annaguna markii aan kala reebin boolis military cid walba annagoo kala reebin amarkaa waa la qaatay sideeda u dhacday waa dadku intii ugu dambaysay waxa magaalada joogay waxay hayduun kuwa ama waxaan wanaajin ama waxaan xumayne dhalinyaradeenna uma magaalada dhex joogtay maanta waxaan wadnaa oon halkan ka sheegaynaa in aan ogolaanay ciidamada booliiska militariga ma ciidamada booliisku in ay kaantarooradii iyo magaaladii gudaheegii iyo wixii oo dhan saacadda laga bilaabo inay hawshoodliyadii kaantarooradii dhammaantood waxaanu amar ku siinay booliiska inay talligada tagaan in magaalada amnigeega ilaaliyaan ayaan ugu tagnay ciid ugu tagtaayeen jirin ku qoraystayuuna ugu tagin ku xarig sitayuuna ugu tagin ku gacanta wax ka tuuriyayuuna ugu tagin qof walba shaqadiisa qabsato muddadii ay dhibaatada weyni dhacday dabadeed waxa magaalada ka dhacay mushkilado badan oo ay geysteen dadyo aan la garanayn oo ujeedooyin kale leh waxa dhacday in jidadka la xidho dadka baad lagaga qaado haweenka lagu dhibaateeyo isu socodkii gaadiidka iyo magaaladu istaago arrinkaasi waa mid aad caqabad weyn ugu ah bulshada halkan waxaa fadhiya madaxdii dhaqanka oo isu dhan waxaanu maanta go'aaminay si aanay u sii socon fawdadu dad ujeeddalana ayna ummadda u dhex gelin in mataqaanaayay la soo celiyo ammaankii maamulka booliiska waddanka iyo kuwa gobolkana oo halkan fadhiya kulan baanu wada qaadannay waxaanu dhaqan ahaan u soo jeedinay inay ciidamadii amniga ee booliiska magaalada ku celiyaan dhammaantood saldhigyadii waa lagu celiyey wayna howlgelayaan dhallinyarada magaalada waxaan markaa u sheegayaa adeerayaal ilmaabtiyaal awowayaal waxa weeyaan ciidanka waad la shaqaynaysaa danteennaa ku jirta amnigeennaa ku jira horumarkeennaa ku jira nolosheennaa ku jira meel aan amni ka jirin wax alla wax nololoo ka suuro gelaysaa ma jiro waaqaygu wuxuu yahay ha loo hoggaansamo awaamiirta ciidanka booliiska waxaan halkan u wada joognay waxa weeyaan wada tashigii waxa weeyaan amnigii magaalada kaasoo ka soo noqonaya gadgadoonkii maalmihii u dambaysay nagu dhacay aynu ka falcelinaynay dee wixii aan laqbayn la qabno maantana waxaanu la hor joognaa si aan horeyba aanu soo sheegnay waxa weeyaan waa badbaadintii iyo samata bixintii xaaladii deegaan nololeed magaalada ku sugnay sidii ay howlgeli lahaayeen xarumihii caafimaadka xarumihii kale ee ciidanka iyo ammaanka oo sidaas salaadiinta horeyba ay imika ay sheegaysa ay lahaayeen mataqaanaa in bal ciidankii ammaanka lagu celiyo maadaama ay soo baxeen waxyaabo badan oo amni darro badan keenaya oo noloshii bini'aadanka dee ku ah mataqaanaa lid ku ah sidaa daraaddeed waxaanu leenahay war amnigaasi dee aynu ka wada shaqayno ciidamadaasina marka loogu celiyo si rasmiya loogu celiyo meelahoogii waa in lala shaqeeyo oo loo hoggaansamaan lahayn waxaan leeyahay oo intii hadashay kala mid ahay in booliiska shaqadiisii loo sii daayo amarna ay tahay booliis iyo dhaqan iyo cid kasta oo hadalkayga maqlaysahay booliiska shaqadiisii ha loo ogolaado hadday kontarooladii tahay iyo hadday magaalada gudaheeda tahayba ciidanka booliiska shaqadiisii waa in loo ogolaadaa cid ka faragelin kartaay waa inayna jirin haddii ilaahay idhaahdo ciidamada booliiska waxaan leeyahay halkoodii ha ku soo noqdaan
amar baan halkan booliiskii kala qaadanay in nin waliba shaqadiisii awalba ka shaqaysanayay ku soo noqdo wax alla wax ka hor imanayaano oo shaqadiisii ka xijaabaya oo kaga mormaya oo meel kale loogu tagayaana aanay jirin ee madaxdiisi kuwaana maqlayaa yihiin sooyda qoladii booliiska la shaqaynaysay qolada militariga ka maqan iyaduna waa kala hadalay taliskoodii waxaan leenahay iyaguna xeryahoogii ha ku noqdaan ay ku qaramaysnaayeen ay dowladda ugu shaqaynayeen mushaaradooda ku qaadayeen cid ka hor joogsanaysaana ma jirta cid walba waan kala hadalay intaa waa la imaqlayaa intaasaan idinku waaninaynaa